isku duwaha wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubbaland ee degmada Buurdhuuba Maxamed Aadan Maxamed ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay xilli uu dunida ku sii baahayo cudurka COVID-19 waxa uuna u kurgalay sida ay degmada uga socoto wacyigelinta cudurkaasi waxaana uu mahad celiyay qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha degmada Buurdhuuba waxaan sameynaa ayagan buukan geena gurweyn baan u qodnaa oo dheer dadka asagan ku duwnaa halkaasaan insha Allah waxaan ku qabanaa insha Allah waxaan aad u bogaadinayaa deegaanka ku noolay degmada Buurdhuuba in laga shaqeeyo nadaafadda waayo nadaafadda waa iimaanka barkiisa inkastoo hadda uu jiro cudur caalamka aad u gilgilay oo dhibaatadiisa aad u wato oo lagu magac daray COVID-19 ama la caan baxay coronavirus saas oo tahay marka inaan mar walba nadaafadda aan macnaha ku dadaalo meelaha musqulaha oo kale meelaha qashqobyada oo kale in macnaha isbitaalada ugu deeqano geeniwaayana inaan gobolada waayana saliidiga iyo daawooyinka waxaan ku safe books baan ku ridnaa waxaa way safe books asan u leeyahay saliidiyaashii markaas aan qaadaya gudba loo qaaday lagu leeyahay daawada dhacday wax markii loo go'an waa lagu soo duubay daawo badan oo quality la tahay kan bilood ka karimata waxaan sameynaa inaan ugu deeqano isbitaalka la geeyo markii si loo siiyo lix bilood ka dhimata gabagabadii isku duwaha wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubbaland Maxamed Aadan Maxamed ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka degmada oo uu ka muuqdo burbur baasan isagoona ka hadlay ujeedka kormeerkiisa maanta ee goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waxa uuna codsi u diray wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer state si loo badbaadiyo bulshada Buurdhuuba bareefadiyada maartay ee gaarka loo leeyahay magaalada maartay ka shaqeeyo dadka maartay ee hoos tagaan daweyn ahaanta ayadoo aan ka soo kormeeray dawooyinka ayaan waqtigooda dhicitaankiisa waxay kisbaayara inay maartay ku jiraan sida kisbaayar haduu yimaado laftigeeda ay yeelaan waxyaabaha maartay haraadiga ah sida syringeska la isticmaalay suufka maartay la isticmaalay kartoomada dawada ka dhamaatay iyo alaabada kale ee kaniiniyaasha ku jiraan markay faaruqaan sidii maartay ay u aruuriyaan iyo sida maartay ay u asturaan inta ayada waan soo kormeernay degmada waxa joogto u noqotay qofkeeda bukaanka inuu safar galo oo luuq garbaari halkaas uu safar u galo taasi oo ah mid uu ku baxay dhaqaale aad u tiro badan fara badan in badanna waan ka qaylinay dadka waxaan kala hadalnaa nadaafadda waxyaabo badan inta dadaalkayaga ah waxaan halkan ka codsanayaa cudurka coronavirus-ka maalin dhaweyd waxaanu ka bixinay wacyigelin ilaa iminkana waan ka wadnaa ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka heer state iyo heer federaal labadaba waxaan ka codsanaynaa in deegaankan si mas'uuliyada loo soo eego waqtigan oo roobab ay bilowdeen oo laga yaabo qofka xitaa jeebkiisa la bixi lahaa ee safar aadi lahaa inay wadooyinkii maartay dhiiqo iyo roob uu ka xiro inay dhici karto waxaan codsanayaa in wasaaradaha arrimahan ku shaqo leh ee caafimaadka inay arrintaas xil weyn ay iska saaraan ummadana ay u soo gurmadaan qof xanuunadii la yaqaanay laga badbaadin la yahayna kullu yaqaan ku aan la aqoonin laga ma badbaadin karo ma dhacaysin laga badbaadiyo sababtoo kii la yaqaanay oo ama antibiyootiga u baahna ama talaalka u baahna ee la yaqaanay primary care ka ahaada laga badbaadin laayay mid secondary stage ma filayo inuu ka badbaadiyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan bulshada caafimaadka ee ku howlan dadaalada kala duwan ee aadka u fara badan iyo mas'uuliyiinta hadba sida ay u kala sareeyaan heer wasiir ku-xigeen agaasime heer gobol ilaa iyo heer degmo inta ka dhaxayso waxaan filayaa in baaqa uu noqon doono mid lagu baraarugay iminka laftigeeda coronavirus-ka aan ka wacyigelinaa dadka annaga laftiganaga ma haysan qalabkii protector-ka ah ee ka hortagga ah ma hayno ma u hayno dhaqaale kaleeto oo hadda wacyigelinta aan ku sii fidino ma hayno maartay inaan annagu wax isku xirxirnay gaadiidka dushii uga hadalno dadka ka wacyigelino dhex qaadno maadaama aanan dadka la isu keeni karin inaha ayaan maartay ayaan ku si kastaba ha ahaatee degmada Buurdhuuba waxaa ka jira baahi caafimaad oo baasan waxaana gabi ahaanba burbursan isbitaalka guud ee degmada kaas oo aan wax dayactir helin tan iyo dawladii dhexe ee Soomaaliya Bishaar Ibraahin Aadan dalka TV
degmada Buurdhuube ee gobolka Gado.